Walaalayaal, sida ugu sahlan aan uga bogsan karno murugada, caafimaad darrada, shaqo la'aanta iyo ciriiriga aan dareemayno dhibaatooyinka faraha badan adduun iyo aakhiro, Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. waa inaan Alle u soo laabanaa dembi dhaafna weydiisanaa. Allana waa ka dhaafaa dembiyada addoommadiisa markay u soo laabtaan. Faa'iidada aan ka helayno markaas kadib, Alle samada ayuu roob nooga keenayaa iyo naxariis iyo caafimaad iyo irsaaq intuba, wuxuuna noo kordhinayaa Alle maalka iyo awlaadda, beeraha iyo webiyada. Waanu ka baxaynaa faqriga iyo dhibaatooyinka. Waa haddii aan istikfaarta badino. Luqmaanul Xakiim wiilkiisa ayuu wuxuu ku yiri asigoo la dardaarmay: cawid lisaanaka astaghfirullaha alcadiima wa atuubu ilayh. Wiilkaygiiyow, carabkaaga waxaad bartaa aad ku celcelisaa astaghfirullaha alcadiim wa atuubu ilayh, fa inna lilaahi saacaat. Ilaahay waxaa u sugnaaday laa yuraddu fiiha saa'il, aana lagu soo celinaynin saacado, aana lagu soo celinaynin qofka wax weydiista. Ummuna Caaisha radiyallahu canha waxay tiri: tuubaa liman wajada fii saxiifatihi istighfaaran kathiira. Waxaa liibaanay qofka ka hela kitaabkiisa maalinta yawmul aakhiro istikfaar badan. Walaalayaal, marka aynu ku dadaalno istikfaarta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.